shirkii shalay dowladda ay yeelatay oo guddiyada la dagaalanka cudurka coronaviruska iyo amniga labadaba aan ka wada yeelanay runtii waxyaabaha aan aad xogahooda u helayna waxay ahayd in dad sharwadayaal ah ay bartilmaamaysanayaan inay ka faa'iidaystaan wanaagga iyo horumarka Puntland ay gaartay dadka xun shacabkan inay noqdeen shacab diidan dulmiga shacab diidan argagixisiga shacab isku duuban waxay muujinaysaa dadka noocaas oo cadaawada noocaas wata xogahooda waan helaynay diyaar garowga dawladdu waa u jiray laakiin tay xala dhacday qadar dhacday bay ahayd laakiin waxay ahayd fal xogtiisana maalmaha kan la ogaa lagu raad joogay wixii idmanaabaa dhacay laakiin waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer Puntland dawladooda inay diyaar u tahay in ay arintaas ka shaqeyso waxaan iyagana ka codsanaynaa inay dawladda si dhow ula shaqeeyaan laamaha amniga go'aanada iyo war-saxaafadeedka aad ka dheehan doontaan warbaahinta waxaa ku soo baxay qodobo dhowr ah oo ugu muhiimsan yahay in dawladda hay-adaheeda oo dhan loo jiheeyo muddada soo socota inta laga hubinayo laba xaalo xaaladda cudurkan oo runtii isaga naftirkiisa amniga saldhig u ah oo khatar nafeed iyadana ku wajahan in si adag looga shaqeeyo sidii dadka amnigooda iyo badqabkooda jireed iyo caafimaad iyo nololeedba loo sugi lahaa waxa ay dawladdu qaadatay tallaabooyin ku aadan arrimahaas oo ugu muhiimsan in hay-adaha dawladda loo jiheeyo sidii ay uga hortagi lahaayeen xaaladaha amni xumo ee sababaya argagixisada iyo cudurka coronavirus labadaba waxay soo saartay awaamiir dhowr ah oo ugu muhiimsan tahay dadka si loo ilaaliyo naftooda in ay u hogaansamaadaan tacliimaadka ama fariimaha ka soo yeeraya guddiga la dagaalanka coronaviruska oo ugu horeeya in ay ilaaliyaan isu soo baxyada iyo meelaha ay joogaan isu imaanshaha iyo waxyaabaha sababi kara caafimaad darrada lagu kala qaadi karo xanuunkaas waxay dawladdu soo rogtay in la joojiyo dhaqdhaqaaqa oo dhan 6 maqribnimo ilaa iyo 5 aroornimo 1 bisha soo socoto wixii ka bilowda waxaa mudaysan ilaa ay 15 abriil inta aan ka hubinayno xaaladda caafimaad ee geyigeena sida ay tahay haddii loo baahdana kor ayaa loo sii qaadi doonaa waxaa sidoo kaleeto ciidamada dawladda oo dhan heegan loo geliyey in ay amnigana sugaan awaamiirta ku aadan coronaviruska iyo sidii dadka ay maaragtay uga wacyigelin lahaayeen ama uga shaqeyn lahaayeen ama ula shaqeyn lahaayeen hay-adaha ku shaqale iyagan in loo jiheeyo waxay dawladdu qaadan doontaa insha Allah tallaabooyin arrimaha ku saabsan oo ay ku xakameynayso dhammaan dhaqdhaqaaqyada isu soo baxyada waxay abuurtay sanduuq ay ku shubtay dhaqaalihii ugu horeeyay ee rajaynayso dadka muxsiniinta iyo dadka Soomaaliya caawiya in ay ku soo shubaan maxaa yeelay khatarta xanuunkan uu leeyahay iyo awoodda dawladda Puntland ay leedahay runtii wax isku dhigma maaha ilaa hadda waxaan abuurnay xarumo karantiin waxaan diyaarinay tababaro shaqaale waxaan howlgelinay hay-adihii dawladda oo dhan inay arrintaa ka shaqeeyaan waxaan xakameynay dhammaan waxyaabihii sababi karay intii karaankeenna ah laakiin sidaas ay tahay awooddeena dhaqaale weliba ay kooban tahay waxaan rajaynaynaa iyadana dadka reer Puntland guud ahaan inay ka wada qayb qaataan annagoo og dad fara badan oo reer Puntland oo dibadaha ka soo caawin jiray ruuxadooda inay duruuf adag ay ku sugan yihiin guryahoodii joogaan aysan shaqayn dakhligooda uu isdhimay culayskaas guud inaan u wada diyaar garowno sidoo kaleeto waxaa si ku meel gaara loo jeejiyey cashuurtii sales tax-ka ahayd oo ahayd inay bishan kowdeeda bilaamato sababahaas aan rajaynayno inuu koror ku dhaco sicirka annagoo ka taxadarayna waxaan sidoo kaleeto ganacsatada ka codsanaynaa in aysan ku kordhin badeecadaha daruuriga ah iyo nooc kasta ay yihiin dadka uga faa'iideysan fursadda maxaa yeelay qofkii ganacsatada oo markaan oo kaleeto qof dhiban ka faa'iideysta
maalkiisa iyo xoolihiisa ilaahay barakeyn maayo marka waxaan kula dardaarmaynaa inaysan ka faa'iidaysan fursadaha noocaas waxaan sidoo kaleeto fariimaha iyaga ku jirta in kaydka Puntland yaala loo hayo dadka reer Puntland wixii kaleeto oo la soo waaridi karan in la soo waarido si dadka khatartan oo cabsi badan laga baqayo inay bilaha ay sii soconayso inay sii kordhaan ayaa waxaan rajaynaynaa iyadana in diyaar garow aad u adag laga yeesho muhiimadda war-saxaafadeedka ayuu ku qoran yahay xoogiisu waxaan rajaynaynaa hay-adaha amniga iyo hay-adaha dowladda dhammaan inay awaamirtaas ay fuliyaan si habsami leh ay ula socdaan dowladduna shaqadeedu xooggeedu wuxuu noqon doonaa guddiga arrimahaas ka shaqayn doona iyadana oo ah heer madaxtooye oo anigu aan guddoomin doono waxaan si dhow ula socon doonaa ama shaqooyinka kaleeto oo dhan u joojinay inaan xoogga saarno amniga dadka muwaadinka reer Puntland si uu badqabkiisa uu helo intii karaankayaga ah dareenkaasaan la qaybsanaynaa waxaan u sheegaynaa khatarta xanuunkan inuu sii siyaadayo khatarta ku sii badanayo Afrikana baqdin badan laga qabo qaasatan geeska Afrika cases badan oo Kenya way korbay u sii kacayaan Ethiopia korbay u sii kacayaan xuduudaheenu weli siba isugu yaacsan yihiin inkastoo Puntland ay goosatay in dadka deegaanada ka soo galay la xanimo wixii iyadana maanta ka dambeeya waxaan aad u rajaynaynaa dadku inay meelahooda ku nagaadaan Soomaalida nin walba meesha uu joogo inuu ku nagaado ayaa sida ugu wanaagsan ee ka hortag loo sameyn karo socodka faraha badan in la iska daayo kuwa dibadda jooga inay guryahooda joogaan kuwa gudaha jooga inay joogaan in wixii laga maarmaan oo dhan ay dib u laalaan annagoo duruufta dadkeena qadarinayna dad badan oo xoogsata ah waxaan rajaynaynaa iyaga oo quutul daruurigoodana raadsanaya laakiin inay aad u taxadaraan xirtaan qofkii shaki iska qaba aaladda ama maaska afka lagu xirto dadka inaan la salaamin gacmaha in si fiican la isaga dhaqo in si maaragtay taxadar leh loola dhaqmo xaaladan caafimaad in guryaha iyo meelaha ciriirka iyo caruuraha iyo dadka dhan oo wada waayeelka ah inaan la isdhexgelin intii la kari karo intii la kala fogaan karo kulamada aan laga maarmi karin in meelo furan lagu qabto in meelaha xiran iyo dadku ay isku qaadsiin karaan ama isku dhow yihiin xilliga ay wada hadlayaan in aad looga taxadaro waxaan bulshada reer Puntland dhammaan ugu baaqaynaa in ay gacmaha isqabsadaan inay u diyaar garoobaan dagaal aan dhammaad lahayn oo mar walba taagnaanayo maxaa yeelay horumarku mar walba wuxuu u baahan yahay sacyi iyo dagaal joogto ah marba xeeladiisa leh hadda waxaana haysta waa al-shabaab iyo coronavirus labadaas ayaa waxay noo yihiin hortabinta koowaad ee dowladda Puntland iyo dadkeedu ay rabaan inay iska caabiyaan sidee hore ugu guuleysan jireen cadawyadan ayay ugu guuleysan doonaan haddii ilaahay idmo arrinta caafimaadku runtii walwal badan bay nagu haysaa waa xanuun ilaahay naguma keenay ka daran argagixiso kasta oo ay adag tahay xakameyntiisu sida aan ka arkayno dalalka hadda waxa ka socda waxaan arkaynaa dalalka qaybtood oo horumarsan oo dhaqaalahooda uu kubacsan yahay ama awoodooda iyo imkaaniyaadkooda ay fiican tahay in maalmaha qaybtood wax kun qof ku dhow ay maalintii dhimanayso arrintaas runtii cabsi weyn bay na gelisay waxay u baahannahay dadkeenna in aan hadda awoodda aan leenahay waxa waaye inaan digniin iyo ka hortag samayno xaaladdaas waxaan ilaahay ka baryanaa inuu noo keenin ilaahay inuu naga hayo aad baad u mahadsantihiin inaad fariimaha iyo tacliimaadka ka imaanaya dowladda inaad qaadataan baan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo awaamirtuna siday tahay loo fuliyo ciidamada amniga iyo guddoomiyaasha gobollada iyo degmooyinka waxaan faraynaa dhammaan awaamirta soo baxda si dowladnimo in loo fuliyo oo aan dib u dhac lahayn oo la iskula xisaabtami doono dadka dowladda mas-uulka ah awaamirtu waa inay siday tahay u fushaa lagu khasbaa danahoodana way wax danta ku jirto ciddii diidana tallaabo sharciga waafaqsan laga qaada aad baa u mahadsantahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi